sheekh sayladan waxay leedahay waa hooyo waxaan haystaa ubad waaweyn oo iyagana loogu taag waayay salaada su'aali waxaad u moodaa inay u badan yihiin kuwa salaadii loogu taag laayay ilaahay salaada inoo fudeeyo waa hooyo caruur waxaan haystaa bay tiri aad u waaweyn oo bimacnaa weyn oo kulay qaangaadhkii kor u dhaafaya salaadii baan markaa ugu taag laayay haddii aan anigoo ciqaab uga dhigaya ka goosto cuntadii arinka noocaas iyo dambi ma igu jira afiiduna wajazaakallahu khayran haddii awlaadii waaweyn yihiin inay salaadii tukan waayaan dee waa in loo naseexeeyo haddii 7 jir ay yihiinna dee waa amar baa la siinaya haddii 10 jir ay ka waaweyn yihiinna rasuulku ku garaaca buu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo 10 jir hadduu ka weyn yahay ama 10 jir baa hadduu gaadhay dee marka waa lagu garaacaya dee dhangadii bay soo qaadanaysaa cuntadiina way ka jari kartaa haddii dee salaadii baanay tukanaynay dad waaweyn yihiin ama 10 badda hadday dhaafeen waanay ku garaaci kartaa cuntadana way u diidaysaa 7 jir iyo 8 jir kuwana dee amarkunbaa la siinaya waxaa lagu tarbiyadaynayaa ama lagu tababarayaa inay salaada tukadaan 7 jir hadday gaadhaan salaadii amar baa la siinaya inay tukadaan 10 jir hadday gaadhaanna ushi baa loo soo qaadanaya sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam amar uu ku bixiyey amarkaasina dee waa amar maaragtay saaran waalidka ama dee mas-uulka maaragtay ka mas-uulka ah bay saaran tahay marka ha ka jarto haddii wacdigii iyo nasiixadii ay qaadan waayaan iyo taladii ama waanadii iyo dee guubaabadii hadday qaadan waayaan waa marka aqalka cuntada ha laga jaro marka dee dambay u tukan doonaan marka dee dhowr cisho cuntada laga jaro